السلام عليكم أحبابي ميل walba aad joogtaan waa idin salaamay waa walaashiina Dr. Sajiya kusoo dhawaada channelkayga iyo macluumaadka caafimaad oo inooga barateen fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe saar like saar gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaaladan soo gelino mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha sababa shahwada oo dhiig yeelata. Shahwada oo dhiig yeelata waxay ragga gelisaa cabsi aad u weyn iyo walwal, balse nasiib wanaag maahan shay keeni kara khatar caafimaad darro oo aad u weyn. Ragga ka yar 40 sano oo aan lahayn wax calaamado ah ama aan isku arag waxyaalo kale oo cabsi geliya, haddii ay shahwadoodu dhiig yeelato maahan in ay cabsadaan ama ay walwalaan, waayo xaaladani kuma ahan khatar caafimaadkooda wayna iska dhamaanayaan ayadoo aan la daaweyn. Balse ragga ka weyn da'dooda 40 sano haddii ay shahwadoodu dhiig yeelato waxay u baahan yihiin in ay baaritaan caafimaad oo degdeg ah ay sameeyaan. Tusaale ahaan, haddii aad isku aragto qodobadan soo socda waxaad u baahan tahay in aad dhakhtar la xiriirto ama kala tashato xaaladaada caafimaad. Waxaa ka mid ah haddii dhowr jeer ay shahwadaadu dhiig yeelato, sidoo kale haddii aad calaamado kale isku aragto markaad kaadinaysid ama aad biyo baxaysid, sidoo kale haddii aad qabtid cudurka kansarka iskuna aragtid dhiig la socda shahwadaada. Maxaa sababa in shahwada raggu ay yeelato dhiig? Waxaa sababa infekshanka iyo caabuqa, cudurrada lagu kala qaado galmada, dhaawacyo soo gaara xubinta taranka ragga ama tuubooyinka soo qaada shahwada, tuubooyinka soo qaada minada oo xirmata, kansarka ku dhaca qanjiraha. Maxaa ka mid ah haddaba calaamadaha la isku arko? Waxaa ka mid ah kaadida oo ku gubaysa, xanuun daran ay yeelata. 2 kaadi haysta oo xanuunta mar walba oo kaadi soo gasha. 3 biyo baxa oo xanuun yeesha. 4 xubinta taranka ragga oo bar. 5 qandho, cadaadiska dhiigga oo kaca iyo wadne garaac. Haddii aad ka yar tahay 40 sano manidaadana aad dhiig ku arag, badanaa uma baahnid in aad hadiiba aadan isku arag calaamado kale in aad samaysid baaritaan ama qaliin la xiriira qanjirada prostate-ka ah, kaasoo ku cadaynaya in ay qanjir xoogaa yar oo dhiig ah soo deeyo. Haddii dhiig la socda shahwadaada uu yahay mid yar taasoo aan ahayn wax la arki kara waqti waliba, haddii da'daadu ay ka weyn tahay 40 sano dhiigana aad ku arag minadaada, waxaad u baahan tahay in aad la tashid. Haddii dhiiggu uu kaadidaada la socday waqti badan ama isbuucyo, sidoo kale haddii dhacdadu marar badan soo laalaabato, haddii aad isku aragto calaamado kale sida kaadida oo ama gubta, haddii aad qabtid kansarka ama cudurrada lagu kala qaado ama lagu gudbiyo galmada, fadlan la xiriir dadka kuugu dhow markaad qaabilsan cudurrada.